saaxiibadana qiimaha badan ee ku xiran YouTube-keena Cabdalla Deeqsi iyo page-keena Cabdalla Xuseen saaka maxaan idin haynaa barnaamijkeena maha cusub balse marka hore aan wada dhageysano codkan laasiga ah waxay oran jirtay maamahayd haadbahaad kiciye waxaan maanta idin haynaa heesta cusub ee Qadar Silimo oo ah haadbahaad kiciye Hodan Cabdiraxmaan halkay ku dambeysay balse intaan muuqaalka gudagelinaba barnaamijkeena iyo mawduucan ka hadlaynaba waxaan saaxiibi ka codsanaya inaad YouTube-keena subscribe saarto Cabdalla Deeqsi sidoo kale muuqaalkana like gareyso sina share gareyso like iyo share to waxay noo tahay subscribe to horumar fiican oo gaarsiin saaxiibada qiimaha badan oo page-keena Cabdalla Xuseen kunkii filo wax yar baa ka hadhanayay isagana gacanta ula tago dhac ku si falowdana soo falow garee aad baad ugu mahadsantahay muuqaalkan daawashadiisa iyo muuqaalada kala soo dhigno baraheena bulshada ee xiriirka internetka hadii aan ku socono mawduuceena waxa ay soo qaaday fanaanada Qadar Silimo iyo fanaanka Cabdisaki labada fanaan ayaa waxay quest uga jeedeen isla labada fanaan ee kala Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan labadaas ay ku deerniyeen isla hadalkood nin odhaahdood iyo weerahooda balse si kastaba ha ahaatee weli kama aysan soo jawaabin fanaanada Hodan Cabdiraxmaan isla hadalkii ay u jeedisay Qadar Silimo oo ahayd saygii hore ee Mursal Muuse marwadii hore ee Mursal Muuse dhacday saygeedii hore ee Mursal Muuse ayay daneynaysay balse muddo badan ayay daba taagnayd sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah ee sheegay aan helayna ambase ila ku dhow Qadar Silimo soo ugu dambeyntii markii ay weyday hawna u soo laaban waayay Mursal oo loo ballan qaaday inuu tagi doono America meel ka mid ah iyo wadamada Mareykanka oo ka mid ka yahay ayaa waqti xaadirkan dib u soo jaleeci waayay Qadar Silimo isagoo sidiisa ugu sii dhigan fanaanadiisa amba xaaskiisa Hodan Cabdiraxmaan balse Qadar Silimo ayaa waqti xaadirkan boardka iska jaftay waxayna soo qaaday hees aad u qurux badan daawadayaal sidoo maqlayseen amba wada daawateen kulay wada daawateen inkastoo oo soo qaaday heestan oo soo qaaday hees kale oo ah in jacaylka uu muujinaysa bas aan soo qaadan heestii Qadar Silimo taasna bedelkeeda waxaan u la jeeday inaan soo dhigin baraha bulshada isla heesta in laftirkeeda oo waxay isku noqonaysaa qayb isku mid labada bulshada darteed anigoo labada hablo isku dirin oo ka baaqsanaya inaan laba qof in walaala amba sidoo kale ha ahaadaan in kasoo mar wada kala qaateen nin aba isku qabsadeen halin balse dumarku laba walaal ayaa xataa halin isku qabsadeen sida darteed waxaan iska daayay inaan soo qaato mawduuca laftirkiisa balse waxaan soo qaatay galiya sawiradoodii amba bogjaradaan soo qaadanay balse hadaan ku socono soo ogaaday Qadar Silimo waxay ahayd marwadii hore ee aan idhaahday Mursal Muuse oo in badan ay xaaskiisa ahayd ubadnahay u dhashay balse ugu dambeyntii waxa ka qaadatay oo gacanta kaga wareegtay si ay u sheegashaa fanaanada kale ee iyana digeeda ee Hodan Cabdiraxmaan oo ka soo duushay dhinacay qurbaha ayaa Mursal gacanta ku dhigtay balse ugu dambeyntii way ay hantay oo waxay yeelatay qulubtiisa ay hantay Qadar Silimo halka ay cid looga dhaqaaqay Mursal waxa ay u ballan qaaday inuu geyn doono wadamada America wadan kamid ah balse waa uu ogolaaday isaguna oo waxa uu noqday wiil loo ballan qaaday qurbaha inkastoo dhalinyaradu iska jecel yihiin qurbaha inay tagaan haddana nin ay ballan qaaday gabadh fanaanada oo qurbaha ku nool inay u dacwoonayso ay ka xayna doonto waad ma garan kartaa dameerkiisa ay isbedel ku iman karaan balse Qadar Silimo laftirkeega iyadu waxay ballan qaadi kara wadaan baahiran kara wadaan oran karna qulubta Mursal Muuse ugu dambeyntiina way iska daysay oo waxa iska fadhiisatay mid ka mid ah goobaha fanka looga arrimiyo oo ah magaalada Hargeysa balse Qadar Silimo sidoo kale waliba ma ay sheegeen inay wali guursatay nin kale Mursal kadib niyada uu ma haysto inay guursato ninkan Mursal ahayn oo ma aysan shaacin inkastoo ay jiraan warar ku turkuteen oo dadka ay isleeyihiin amba ay sheegayaan inay guursatay nin kale balse wax xaqiiqo ah iyo wax hubantiya midna looma hayo arrintaas taasna waxay keenaysaa inay Qadar Silimo abaad ka dhadhansan kartaa inay Qadar Silimo weli danayso inay Mursal mar uu isku soo noqon doonaan oo ay jeclaan doonaan balse iyadoo intaas oo dhan Qadar u adkaysan weyday waxay ugu dambeyn hees la soo qaaday fanaanka caanka ah isaguna ee soo shacbaxay Cabdisaki kaasi oo ay heestan soo wal qaadeen iyaga oo la afiyoonaya iyaga oo u qaaday si aan lahayn ka soo laabasho iyo farxad ku dheehan tahay iyo reejacaylo
aad macaan. Fanaanada waxaa lagu yaqaanay inta badan Qadar Silimo inay soo bandhigto jidhkeeda quruxda badan iyo rucleyn iyadoo si u rucleynaysa ama si u jaasaysa oo in qaadaysa heeso ayaan raab oo kala marka jidhkeeda macnaha waxaan ka hadlayaa ay dhaqaajinayso in ayaa lagu yaqaanay balse maanta ayay soo bandhigtay hees abid ugu qurux badneed iyo jaaskii ugu quruxda badnaa kaasi oo ay dadku u badan u turjinteen inay Hodan Cabdiraxmaan waradan lahayd waxaan helay mid ka qurux badan amba ka geysan mursal oo adiga qaadatay bariye ka hor balse Hodan Cabdiraxmaan iyadu maxay ka soo jawaabi doontaa maxay soo odhan doontaa arrintaas mursal muxuu ka odhan doonaa midna lama ogo oo waxyaalaha la saadaaliyo balse waxa la saadaaliyo inay Hodan iyo mursalba ka soo jawaabi doonaan iyaguna soo qaadi doonaan hees saaxiibayaal nala socda page kale ku xidhnaada aadna waad mahadsantiin.